السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيات يوتيوب سلامي عشركن wuxuu ku saabsan yahay sidee root u samayn lahayn cashirka qorayn waxaan ku talagalnay oo ku faahfaahinay root macnihiisa wuxuu yahay iyo faa'iidadu uu leeyahay iyo khasaarada uu leeyahay kaasna ka soo hadalnay haddana waxaan sameynaynaa qaybta sahlan ee dadka aad u isticmaalaan rootka kaasoo ah king rootka ee dadka badana ay aad u isticmaalaan uuna sahlan yahay qayb computerna uu leeyahay qaybna wuxuu leeyahay andronka lagu soo dhex degsanayo marka qaybta andronka ayaan ka bilaabnaa kadibna waxaan ku xijinaa qaybta computerka marka aan bilaabno marka sida ula soo degtay marka hore application-ka kale kadibna browser-ka nooca isticmaalisid fur kadibna waxa ku qortaa kingroot.net kadibna sida ay ku soo bixiso qaybtan waa window-ga u baahan tahay qaybtana waa andronka marka qaybta andronka ayaan ku dhufsanaynaa si uu noogu soo dego mobilka gudihiisa dadka badana in computer qadnaysa ayaa laga yaabaa kadib waxaan leeyahay es download igu soo dhalan gareey kadibna just once ayaa hal mar leeyahay sida aniga adigana waa dooran kartaa nooc aragtid kadib markuu download ku dhameeyo double click ayaa siinaysaa install next uu leedahay next aad ugu shubtid kadibna install ayaa leedahay sida gudaha u gashid kadib marka install ku dhamaysid waxa ku soo baxayso open marta masalan dan ayaa leenahay sidan intaan root-ka sameynin waxyaabo kale aan tuso wuxuu faa'iido leeyahay root-ka kale application ayaa gelinaa hada ka soo qaado kale screen recording kan ayaan furaynaa wuxuu ku leeyahay cilad ayaa ka jirto ma ku shaqeynayo sababta ah mobilkaaga root ma lahan waxyaabahan ay kamid yihiin software-yada muhiimka ah lagu talagalay inay ku shaqeeyaan rootka awood u yeelanaya inuu kalar badan raamki badan waxyaabo badan ka isticmaalo kadib kalos ayaan iska leenahay kadib waxaan ku laabanaynaa sidaan u hagaajin lahayn rootkeena king root ayaad ku dhufanaysaa king root markaa ku dhufatid isla markii kor ayaad jag u siinaysaa falaarta ayaa raacaysaa mar labaad ayaad ku celinaysaa si aad kor ula raacdid markaa markaa ku celisid raa'id ayuu ku soo qoray ku dhufo kadib waxaa leedahay rootka iyo raba inuu ku hagaajiyo marka waxaa leedahay get now ayaa leedahay ku dhufso kadib markaa ku dhufsatid wax yar ayaa sugaysaa wuxuu sameynayaa inuu nambaro kuu tariyo kaasoo rootka waqti qaadanayo dhowr daqiiqadood in adiga mobilkaaga markuu rootka sameynayo waxa mobilkaaga ka bedeli kartid maleh mana taaban kartid isticmaalna ma ku isticmaali kartid intuu rootkood wax lagaaga baahan yahay inaad mobilka meel iska dhigtid si tartiiba usoo dhameeyo waxaana kala socotaa intuu badan mobilka root markuu sameynayo waa inuu baterigaaga meel fiican yahay kala baro kale laakiin hadduu baterigaaga dhowr daqiiqad ka dhiman yahay dhowr sakamood halis ayuu ku jiraa mana fiicno laakiin waxaa fiican baterigiisa meel fiican yahay ama full yahay ama normal yahay marka aan sugin intuu ka dhameynayo marka insha Allah bidna green wada waqtigiisa wadhow yahay waxaan ogaanaysaa in rootkan waxa dadka aad u isticmaalaan kamid ah dadka recording isticmaalayo dadka software ka bedelayo mobilada dadka roomka ku sameynaya inay jalabinka iyo laptopka iyo software-yada rabaan ka bedelaan sida Windows XP Windows 7 oo kala leeyahay Windows-yada sida Microsoft-ga andronka sidaas ayuu magacyo kala leeyahay isagana iyo step kala duwan yahay marka hadda uu dhameeyo ujeedaa dhowr iyo 80 second 90 second boqol uu dhameeyay marka wuxuu ku soo qorayaa inaad ku guuleysatay rootkaaga mobilka magaciisa iyo modelka uu yahay kadib haddii aad isku daydid inaad ka dirtid uninstall tool markaan tagno waxaad awood u leedahay option optimize ku dhufanayna si oo u hagaajiyo gudaha waxa kale ogaanaysaa haddii aan ku dhufano uninstall tool ku dhufano waxaan isku dayi karnaa inaan ka tirno mobil tusaale ahaan haddaan iska dhaafo jot on iskaga dhufto mata software iska caadi waa kaas and uninstall wuu ka tirmaa haddii aad isku dayid in andronka programadii isoo lagu keenay gudihiisa aad fail ka tirtid waxa laga yaabaa in mobilka istaago haddii aad isku daydid kuwan kale aad jagsiisid waxay awood u leedahay inaad ka tirtid laakiin haddii aad kuwa muhiim ka tirtid mobilkaaga shaqada uu joojinaa taas waxay ku qasbaysaa inaad mid cusub ku shubtid kadib application ku laabo kadibna waxaad tagtaa qaybtii waxaad tegaysaa recording-ka kadib markaa wuxuu ku leeyahay marka hore cilada uu sheegay laakiin markaan waa ogolaada ujeedaa wuxuu ku leeyahay u ogolow allow ayaa leedahay si uu kugu duubo waxaad ogaanaysaa majeeda markaa ku dhufatid hadda kadibna markaas aan recording dhahno waxaad ogaanaysaa inuu u baahnaa marka hore root markaan root ku sameynana shaqada bilaaway kadib recording ayaa leedahay si uu nagu duubo wuxuu ka mid yahay programka mid free ma aha kuwa lacagta ayuu ku jiraa laakiin high quality ayuu yahay kadibna programka markuu dhammeynaya aan joojin stop aan dhahno kadib marka stop dhahno programka wuu joojiyay shaqada oo jeeda videogiina wuu noo soo diyaariyay kadibna markaan ku laabanayna meesha scrollkan soo dejinayna kadibna markaan ku dhufano screenkii videogaagii ayaa si toos u daawan kartaa ama ku upload gareemay charted ama mobilkaaga dhigo taasna waxay ku sameynaysaa in rootka awood u leedahay in waxyaabahaas program u isticmaali kartid marka aan iska xirno kadibna waan ku laabo applicationada ayaad ku laabanaysaa kadibna waxaan markaan tijaabinaynaa root check ayaan tijaabinaynaa inuu rootkii hore marka hore ma shaqeynin laakiin markaan ku dhufano inuu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay haddii noo soo qoro markaan ma shaqeynin taas waxay noqonaysaa inaan root ku guuleysanin laakiin haddaan
soo qoro inuu succeed soo qoro marka wuxuu ku naga dalbaday inaan asigana u ogolaansho u sameyno load ayaa leedahay wajida waa maasan tahay congratulation waan ugu soo dhaweynaa waan lagu hambaliyana inaad ku guuleysatay rootka kaasoo sahlan marka insha Allah bidna kaliya wax badan kama qaadanayso waxa lagaga baahan yahay waa intaas oo kaliya casharka ku xidhan waxay noqonaysaa sidii hadhow iskaga tiri lahayd rootkaaga haddaad u baahatid adigoo isticmaalaysa king root si uu remove gareeleed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran.